بسم الله الرحمن الرحيم. هل كان أدنى داونيسان ودنسن تي في برنامج كنا ما أنت وحو كسابسن يهي دفاع حقوق دا بلا الله يبسو أي دتك اللي قتر بدن يهي موضوع عن سوق أدنى إن ما أنت وحو يهي حلاليسيغا ليغا قفك الصوماليغا أما قفك بني آدم كأكهور تقيس ومدى الصوماليات waxaa dhaqan iyo caado soo jireena u ahaa marka arrin ay dhacdo inay ula noqdaan xagga shariicada islaamka maxaa yeelay dhaqanka ummadda Soomaaliyeed ayaa wuxuu ku salaysnaa shariicada islaamka inkastoo haddana ay jiraan dhaqamo kale oo ku soo kordhay marka la sameynayo barbardhigga xagga sharciyada marka waxaa jira laba qaanuun oo mid la yiraahdo qaanuun samaawi midna la yiraahdo qaanuun wadci qaanuun samaawi waxa weeye waa asalenka oo ah quraanka iyo sunnaha qaanuun wadcina waxa weeye waa qawaaniinta ummadaha kale ay degsadeen marka sida daraadeed sidoo kale haddana waxa la yiraahdaa diritto naturale ama diritto bottissima diritto naturale ama diritto positivisimo labada sharci marka ala kulli xaal marka arrimahaas oo kale ay yimaadaan waxaanu soo qaadanaynaa kiisaska ku saabsan xagga dilka 1960kii markii Soomaaliya xornimada ay qaadatay ayaa waxa dhacay kiis dil ah kiiskaas dilka ah oo qof geystay ayaa waxa la keenay maxkamadii 60kii waana kiiskii ugu horeeyay ee maxkamad la keeno dalka Soomaaliya marka waxa fadhiya qaaligii labada dhinacna waxa ka fadhiya labadii la taliyaasha u ahaa waxa kale oo haddana jooga xeer ilaaliyuhu wuxuu ka soo baxay jaamacad ku taal dalka Russia qaaliguna wuxuu ka soo baxay jaamacad ku taal dalka Ingiriiska marka reerkii ninka laga dilay iyo reerkii ninka dilay waxay qabsadeen laba avocado labada avocado mid wuxuu ka soo baxay ama avocado ama garyaqaan mid wuxuu ka soo baxay dalka Talyaaniga jaamacadda Modena midna waxa uu ka soo baxay jaamacadda Al-Azhar oo shariica islaamiga soo barta marka labadoodu waxay u kala doodayaan reerkii qofka laga dilay iyo reerkii qofka dilay ayay u kala doodayaan ala kulli xaal arrintii marka la isugu yimid oo doodii ay timid ninkii garyaqaan ninkii lawyer-ka ahaa ama garyaqaanka ahaa oo u doodahayay ninka la dilay oo ka soo baxay jaamacadda Al-Azhar wuxuu la soo baxay kitaab quraan ayad quraan ayuu la soo baxay ayad quraanka ah oo article-kaas wuxuu u dhawaaqaya walakum fil hayati qisasun ya ulil albab walakum fil hayati qisasun ya ulil albab ayad quraanka waxay leedahay walakum fil hayati qisasun ya ulil albab kuwina aqliga wanaagsan iyo qalbiga wanaagsan u saaxiibka how qofkii qof dila in adishan nolol ba idinku jirta ninkan jaamacadda Al-Azhar buu ka soo baxay shariica islaamiga soo bartay ninkan wuxuu ka soo baxay jaamacadda dalka Talyaaniga ee Modena isaguna article buu la soo baxay oo ku qoran af Talyaani wuxuuna leeyahay isaguna chiunque persona qof alla qofkii ka kacione ee sabab u noqda la morte di un'altra persona dhimasho qof kale ee punito con la pena di morte ciqaabtiisu waa dil marka labada qodob kan shariicada islaamka iyo midkan kale oo ummaduhu ay degsadeen waxaad moodaa marka la isu barbar dhigo xagga sharciga inay iswaafaqayaan marka ninkan jaamacadda Al-Azhar ka soo baxay wuxuu haddana uu raaciyay qofku waa in uu ku galaa falka al-iradatu bil-amdi oo kas iyo rabitaan midkan kale oo isagana jaamacadda dalka Talyaaniga ka soo baxay codice Italiano wata
isaguna waxa uu leeyahay deba commessa il reato waa in falka lagu galaa con coscienza e volontà oo kas iyo rabitaan marka isbarbardhigga xagga sharciyada oo qaanuunka samaawiga ah oo qur-aanka iyo sunnaha iyo qaanuunka ummaduhu ay degsadeen yani waxaad moodaa xooga inay isu imaanayaan okay calaa kulli xaal marka arrintii la rabay in la galo arrinta dilka ee dacwada dhacday 60kii oo adkiiskii ugu horreeyay maxkamadda Soomaaliya la keeno ninkii qalligaha wuu istaagay xer ilaalihina wuu istaagay wuxuu yiri wax dacwo ah oo la qaadi karaa ma jirto ilaa sharciga Soomaaliya la mideeyo arrintii halkaas ay ku xirantay marka calaa kulli xaal annaga maadaama ummadda Soomaaliyeed ay dhaqan u tahay shariicada islaamka oo ah qur-aanka iyo sunnaha qolyahana ay wataan qaanuunka ummaduhu ay degsadeen marka sharciyada la isbarbar dhigayo culimadu cilmiga qaanuunka waxa ay raadinayaan arrinta kiis hadduu dhaco oo dil ah arrintan waxa ay salka ku hayso marka waxaan tusaale u soo qaadan karnaa arrintaasoo kale markii ay dhacday oo maxkamaddii 60kii lagu kala tegay madaxweynihii ugu horreeyey ee dalka Soomaaliya allah u naxariisto aadan cabdulla cusmaan ayaa wuxuu qaaday kiiskii waxa la geeyay baarlamaankii 60kii markii la geeyey arrintii waxaa la jideeyey in la qaato nidaamka qaanuunka ummaduhu ay degsadeen ayaa la qaatay marka qaanuunka ummaduhu ay degsadeen marka jaamacaddii Soomaaliya ee xarunta dhexe ayaa waxaa jiray nin professor oo Talyaaniya oo la oran jiray Signor Angeloni waa ninka dejiya Codice Penale Somalo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ninka dejiyey marka على كل حال waxaan isaga gacan ka siiyay nin kale oo isaguna doctor oo la oran jiray Dr. Gabyow marka xeerka ummadda Soomaaliyeed loo dejiyay ee ku saabsan xagga ciqaabta waxa la oran jiray Codice Penale Somalo waxaana la soo arooriyay sharciyadii kala duwana ee la rabay ummadda Soomaaliyeed in lagu dhaqo oo ninkan professorka oo Talyaaniga uu dejiyay iyo ninkan doctorka ah ee Dr. Gabyow على كل حال مركا waxaana lagu saleeyay dhaqankii iyo hidihi ummadda Soomaaliyeed maxay sharciga Soomaaliya waxa la yiraahdaa legge di Massacio waa sharciyo badan oo meelo badan laga soo qaatay oo haddana ku qorra Codice Penale Soomaali iyo af Ingiriis ku qorra على كل حال madaxweynihii ugu horreeyay aadan cabdulla cusmaan allah u naxariisto waxa la geeyay baarlamaanka waxaana laga sharciyay baarlamaanka marka waxaan rabaa inaan idin sheego dalka Soomaaliya 60kii markii xornimada la qaatay ila 69kii markii kacaanku oo xukunka la wareegay ila 91dii qaranjabkii Soomaaliya wax shariico ah oo shariica islaamiga oo looga dhaqmay ma jirin shariicada islaamka hal shay ayaa looga dhaqmay dalka Soomaaliya taasuna waxay tahay waa arrinta ku saabsan oo la yiraahdo al-qanun al-ahwal ash-shakhsiyya ama istuduta personale qanun al-ahwal ash-shakhsiyya waxa weeye waa guurka iyo furiinka bas maadaama dhaqanka ummadda Soomaaliyeed oo ku salaysnaa shariicada islaamka waxay ahayd qofku hadii uu qof dilo in la dilo ama diya laga qaato halhaas kaliya ayaa looga dhaqmay shariicada islaamka baarlamaankuna wuxuu ansixiyay 60kii shuruucdii iyo qawaaniintii yani jaamacaddu ay dejisay ee uu qoray buuggii Dr. Angeloni iyo magaranaysa Dr. Gabyow taasoo la ansixiyo saldhiga looga dhigay ummadda Soomaaliyeed okay على كل حال marka waxaan isweydiinaynaa aynu ka hadlaynaa waxa weeye waa arrinta dilka iyo xalaalaysiga dhiigga qofka Soomaaliga marka waxaan tusaale u soo qaadanaynaa nin ayaa magaranaysa meel taagnaa dad badan oo ay buuxaan oo ay taagan yihiin ninkaas isagoo meesha taagan nin kale u yimid torrey buu qaatay ninkaasu ninkiiba wuxuu la dhacay torreyda iyadoo dad badan oo ay fiirsanayaan torreyda markuu la dhacay su torreyda uu la dhacayay ninkii hilibkiisii oo dhan buu jarjaray
ilaa dhibicda ugu dambaysa ayuu dhulka la dhigay marka falka noocaas oo kale ah oo xanuunka iyo murugadu ay ku dheehan tahay culimada cilmiga qaanuunka waxay isweydiinayaan labadan qof keebaa dhibana ah se keebaa dambile ah taasay culimada cilmiga qaanuunku isweydiinayaan marka culimadu waxay leeyihiin labadan qof arrintaanu halkan ay ka dhacdo waxaa dhibana ah qofka meydka oo halkan yaalla oo falka xanuunka iyo murugadu ay ku dheehan tahay oo ku dhacday oo turayda lagu jarjaray ilaa dhibcid ugu dambaysa ee dhiiggiisa dhulka la dhigay ninkaasaa ma garanaysaa dhibana culimada cilmiga qaanuunka waxay leeyihin maya dhibana ma aha culimadu waxay leeyihiin waxaa dhibana ah dadkii meeshaan joogay marka falkaanu u dhacayay foosha xun ee fiirsanayay bulshadii meesha joogtay ayaa dhibana ah ninkan meydka ah ee marxuumka keligii dhibana ma aha laakiin dadkii fiirsanaya meesha taagna ayaa dhibana ah marka culimada cilmiga qaanuunku waxay leeyihiin marxuumku dhibana ma aha maxaa yeele bulshada waxaa meel looga dhacay dareenkoodii iyo ixsaaskoodii ayaa meel looga dhacay maxaa yeele waxay dareemayaan argagax qof walbana wuxuu leeyahay barina adiga taasoo kale kugu soo socota calaa kulli xaal marka arrintu markay halkaa maraysa culimadu waxay yidhaahdeen qofka marxuumka meydka inta yaal dhibana ma aha bulshaduna dhibana ma aha ee waxaa dhibana ah la familia al usra qoyska marka qoysku yaa waay qoyska waxaa la yidhaahdaa al asli walfarac ama inshendente ee disshendente waa awoowe iyo ayeeyo waa aabba iyo hooyo aabbihiiyo hooyadu marka yaa waay waxa weeye waa marxuumka la dilay caruurtiisii iyo xaaskiisii kuwaasaa dhibana ah dhibkuna iyagu si toosa ugu dhacay maxaa yeelay ninkan la dilay wixii caruurtiisu ay gacantiisa ka helayo dhan ba istaagay midda labaad yacni hawshii qaranka uu u haya ninkanu ayaa istaagtay marxuumka oo la dilay culimadu marka waxa waaye arrintu marka waxa weeye waa arrin yacni taabanaysa qoyska maxaa yeelay ninkan la dilay iyo qoyskanu arrintu femel bay taabatay dadka soomaaliduna waa qabaa'il marka maadaama dadka soomaalidu ay qabaa'il yihiin marka ninkan marxuumka ah qabiil buu ka soo jeedaa ummadda soomaalida waa qabaa'il marka arrintanu waxay marka salka ku haysaa oo laga yaaba halka inay ka timaado arsasho oo femelka ay aarsadaan arrintiina qabiil ay isu bedesho calaa kulli xaal markaa culimadu waxay leeyihiin maya arrintu saas ma aha marxuumku ma aha dhibane bulshaduna dhibana ma aha qoyskuna dhibana ma aha yaa dhibana culimadu waxay leeyihiin waxaa dhibana ah oo dhibkanu si toosa ugu dhacay lostato qaranka maxaale culimadu waxay leeyihiin the existence of the state jiritaanka qaranka is the existence of human being jiritaanka qaranku waa jiritaanka qofka la esistenza dello stato jiritaanka qaranka e la esistenza dell'uomo waa jiritaanka qofka maxaa yeele qaranku waa inuu ilaaliya qofka noloshiisa iyo hantidiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa barke qaranku wuxuu u jiraa in magaranaysa uu ilaaliyo arrintan maxaa yeele calanka hoostiisii ayaa dhiig lagu daadiyey marka calaa kulli xaal arrintu waxay si toosa u taabanaysaa qaranku marka yaa waay qaranku marka waxa weeye territoria waxa weeye dhulka ee boobale iyo shacbigii ee la sofranita iyo awooddii sare ee xukunka haysay marka calaa kulli xaal falkaanu wuxuu si toosa ugu dhacay qaranka ma aha marxuumka ma aha bulshada ma aha qoyska wuxuu si toosa ugu dhacay falkaanu oo uu taabanahaya waxa weeye qaranka maxaa yeele qaranku ma jiri karo haddaan qofka bani aadamku uusan jirin calaa kulli xaal marka arrintaas marka waxay salka ku haysay in laga tabaabushaysto xalaalaysiga dhiigga qofka magaranaysaa soomaaliga dhiiggiisa calaa kulli xaal marka gabagabadu marka waxa waye arrintan oo ay salka ku haysa maca daalika hadhow maxaa yeelay qofkii waxaynu niri aayadda qur-aanka ahayd baanu qaadanay
وأهيد ولكم في الحياة قصص لأولي الألباب قفكي قف يعني ولكم في الحياة كوين عقلك ونكسن إيه قلبك ونكسن صاحبك وقفكي قف دي لأن دشان نولول بأيدين كجرت كان كلنا أو قانونك كلنا مقرنس أو وضع عقون أساس لي كينغو برسونا قف الله لقفكي كاتشون السبب النقد لا مرت دون التر برسوني ابنيتا كل بين دي مرت قف الله لقفكي سبب النقد اللي مش قفك لو إن لدلا مركا على كل حال أرنتو مركا وحوي dhibaatada noocaas oo kale si looga hortago ayaamahana dilku wuxuu noqday mid yani caadiya maxaa wadankiiba fawda ah siyaasadii magaranaysa ayaa fawda ah deganaansho magaranaysa ma jirto marka sidaa daraad haddana intaa maxaa kuu soo dheer ya qofka bani aadamka ay sharaftiisa iyo karaamadiisa diinta islaamka shariicada islaamka ayaa dhowrtay maxaa ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay من قتل مؤمنا متعمدا قف مؤمن أما بني آدم وكسر ربتان أدلو فجزاؤه أبالكي سوحوي نارا جهنم النار أكوارو فجزاؤه نارا جهنم وغضب الله إلهينا وعروضه وأعد له حين أديري عذابا أليما نار إبتك سكوارو بركي ماشو حال دوريا شرفتي يا كرامتي قفك بني آدم كان دوريا إلهي قرآن كيسوح كلها ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ولقد كرمنا بني آدم كوان كرامين وحملناهم وحن صارنا يا في البر والبحر ملك يبدي ما نصارنا ورزقناهم وحن كو إرزقنا ورزقناهم من الطيبات وحكست أو نكسن وفضلناهم وحن كفض ليالنا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا وحكستو أن أبورنا أي أنه كفض لي قفك بني آدم كفض لي بدنيا حتى ملائكة إلهي بكفض لي بدنيا محل النبي آدم بوحالين فاسجدوا لآدم أسجود النبي آدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وأسجودين وحديدي يا إبليس ديدي وكفر ونهل كسبونا كو كفري ودينة إسلام كأوكاقبحي مرك على كل حال حتى ملائكة إلهي ملائكة إلهي هو وحوي وعندما تغلب كسيدة إلهي أيو حتى كفد اللي بدنيا نبي آدم أما قفك بني آدم كأمته لأنه أي كسو أساس من على كل حال مركا وحوي أرنتان وحن أسو قادناي dadka xalaalaysanaya qofka Soomaaliga dhigiisa ama qofka bani aadamka ma aha mid looga harayo waana mid akhri adduunkana ay u taalo barnaamijkan waxa idin soo jeediyay Dalsan TV waxaan idin soo jeediyay anigoo ah garyaqaan Dr. Abshir Warsame Jaamac kana soo jeeda professoradii hore ee jaamacadii Gahayr waa ku mahadsantiin dhageysigeena